madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay dib u doorashada xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo mar kale loo dhaariyay xogayaha guud ee qaramada midoobay. ugu horeyn madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dambal hambalyaha u diray Antonio Guterres oo mar kale qaramada midoobay hogaamin doona 5 sano ee soo socota. sidoo kale madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa tilmaamay in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay soo dhaweynayso inuu mar kale Antonio Guterres noqdo xogayaha guud ee qaramada midoobay. ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in xogayaha guud ee qaramada midoobay ay dowladda federaalka Soomaaliya ula shaqeyn doonto si hagar la'aan ah. Antonio Guterres oo ka hadlayay guushiisa wuxuu ballan qaaday inuu halkiisa ka sii wadi doono dadaalada uu waday isla markaana uu si dhow ula shaqeyn doono dowladaha caalamka. qaramada midoobay ayaa Soomaaliya la leh wada shaqeyn xoogan iyadoo ka taageerto arrimo dhowr ah sida dhaqaalaha, siyaasadda, ammaanka iyo dhanka bini'aadanimada. Samir Cabdirasaaq Umar, wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA magaalada caasimadda Muqdisho. hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom.